guriga markaa gadayso waxyaalayaal qaar inaad disclose garayso aad u gudbiso ayaa jirta qofka buyerka iibsanayo qofka sellerka sharci ahaan legally wuxuu ku qasban yahay inuu sameeyo hadda sameyn wayso waxa macquul gal ah in xabsi aad ku aad arrintan maanta waxaan ku sheegay exactly waxyaalayaasha inaad u sheegtaa marka guriga iska gadayso inaad sheegtaa iyo waxyaalayaasha inaad sheegtaa u baahneen haddii ay tahay markii wadana soo boqotay magacayga wax la yiraahdaa daahir bulshada waxaan ka caawiyaa gurigoodana iska sii gadaan guri cusub inay iibsadaan insha Allah iga soo boqo sidkayga sahnrealtor.com waxaa la jireynay program cusub oo bulshada kaga caawinayna gurigoodana ku bixiyaan 5 to 7 years programkaasi oo loogu talagalay dadka kaliya rabo inay xorriyad helaan oo rabaan mortgage daba taagan sanad walba bil walba ay bixinayaan si u baabi'iyaan haddii aad tahay dadkaasi rabo inay xorriyad helaan ugu soo boqo sidkayga loo yaqaano the fastmortgagefreedom.com halkaas aad tagaysaa waa isregistraynaysaa email baa kusoo geli doona okay waan ku bilaabaya gurigaada marka iibinayso waxaa legally sharci ahaan inaad honest noqoto wax walba aad gudbiso guriga ka qaldan waxyaalayaashana waa sharci ahaan wax adiga aad iska sameynayso maaha ilaa waxaan ku sheegaa maanta checklist aan ku siinayaa checklistigaas ku ogolanaya exactly waxyaalayaasha inaad sii gudbiso loo baahan yahay so waxyaalayaashaasi isteerada way kala duwan yihiin laakiin state of Minnesota waxyaalayaasha number 1 lagaga baahan yahay inaad sii gudbiso oo wax loo yaqaano material defects oo ah haddii guriga uu jiro leaking roof uu jiro roof uu leegaranayo iyo foundationka wax ka qaldayn ama dilaac uu qabo inaad gudbisaa loo baahan yahay number 2 waxyaalaha loo yaqaano wax loo yaqaano past water damage or flooding issue guriga haddii ay biyo ay wax loo yaqaano water damage ku dhaceen ama meel biyaha water heater loo yaqaano water heater kan biyaha in kuleenayo hadduu uu qarxo biyo badan ay ku dilaac biyahaasi haddii wax meesha gaareen guriga ama calada ay ku yimaadeen biyo badan ay galeen dhulka ay galeen waa inaad sheegtaa waxyaalahaas waxaa kamid ah wax loo yaqaano the pest infestation kan waa waxyaalayaasha loo yaqaano termite ama rodent loo yaqaano waa cayayaanka waaye ama jiir haddii guriga ku jiro waa inaad sheegtaa sababta hadhow qofkaas dhibaato u geysanaya number 4 waxa loo yaqaano moldigan waa wax yar oo shucaac yar oo ku beermay guriga waaye wasaq waaye badanaa waxaa keentaa meesha markay biyo galaan oo kale noqotaa ama guriga hadduu meel uu musqula leedahay musqushaasi oo vent hadduu lahayn oo kale uu yeelanaya moldigaasi number 5 waxyaalayaasha muhiimka inaad samayso ay tahay inaad gudbiso loo baahan haddii aad ku samaysay any repairs guriga ku samaysay especially waxyaalayaasha ugu muhiimsan waa structure-ka guriga meesha ku fadhiyo electrical system-ka rewiring ku samaysay ama loo yaqaano plumbing system-ka aad bedeshay waa inaad gudbisaa u sheegtaa waay so hadduu guriga kamid yahay wax loo yaqaano HOA oo home owner association fees aad bixiso guriga waa inaad sii gudbisaa rules-kana waa inaad sii gudbisaa guriga haddii uu qabo wax loo yaqaano lead paint oo guryahan la dhisay 1978 waxa ka horreeyay la dhisay waaye si easy loo ogaan karaa qofka inspection kugu sameeyo soo ogaan karaa so that one ayadana inaad gudbisaa loo baahan yahay laakiin waxaa isweydiinaysaa hadda waxyaalayaasha inaad gudbiso aan loo baahnayn adiga oo zawaysan ku dhahay haddii wixii aad ka shakisan tahay gudbi laakiin waxyaalaashan oo baahna u gudbiso haddii lacala qof uu ku dhinto kale gurigaasi uu qof ku dhintay uma baahna inaad gudbiso it's not required haddii this neighborhood-ka ku nooshahay meel qaylo badan ay tahay oo like unpleasant ay tahay inaad gudbiso u baahnid waxyaalaasha qaar dadka qaar inay gudbiyaan isku dayaan waxyaalaasha waxaa kamid ah laakiin haddii aad like guriga aad u gadayso reason oo divorce oo kale inaad kala tagteen qofkii adiga odagaaga kala tagteen ama financial hardship dhaqaale ahaan kugu adkaatay inaad gudbiso waxyaalaasha looma baahno laakiin waxyaalayaashan ninka real estate agent marka la fadhiisato in ku sharxa loo baahan yahay haddii ku sharaxayna that's a problem dib weyn waa problem isaga fahansanin baa laga yaabaa macquul gal ah like as always anaga isla shaqeyno aniga group dadkan la shaqeeyo mostly waxyaalaasha checklist aan siiya the first ay ogaanayaan waxa soo dhan ogaanayaan so it's a for proactive kugu daraya haddii as leedahay waxyaalayaashan dhibaatay keeni kartaa ama inaad qarisa isku dayayso way ka daymaanaysaa fadlan iska gudbi sababtoo qof kale noloshiisa ayaa burburinaysa qof kale dhibaato ku noqonaysa waxaan adiga hadda maanta guriga iibsanayso oo qof wax ku qarin lahaa dhibaato ay kugu noqonaysa so as always waxa gudbi laakiin taas inta sameyn ka hor first horta wixii maxallin karnaa that's the first question is with you wixii intaan guriga suuqan gelin waxaan hagaajin karnaa miya ma mail paint u baahan ba ma wax qof vent la gelinayo la sameyn karaa miya wax la hagaajin karaa miya waxa lacag badan ku kacaynin there's no reason au qarinayso as always haddii rabto gurigaada inaad iska gado checklist idlan ku siinaya checklistiga ka soo codso checklist toos igu soo qor haddii rabto gurigaada inaad iska gado guri cusub inaad iibsatana insha Allah soo qowsadkayga sahnrealtor.com insha Allah programkani ku soo biir si adiga qoyskaada xorriyada u helaan haddii rabto guri mortgage-kiina ku bixisaan 5 sano ilaa 7 sano programkan waxa loo yaqaanaa the fast mortgage freedom shashadan ka arki doonta website-ka aad lahayd website-kaas tagaysa waa isregistraynaysa information-kaada gelinaysa then boom waxaan ugu soo biiraysaa dadkan ugu soo biiraya noqonaysaa May ayaan qabanayna dhexdeeda insha Allah sasan ku wada that's the projection ka hadda dib u dhacnana as always way is sheegi doonaa insha Allah islaamiya assalamu alaykum